kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qaybta 461 ee barnaamijka tubta nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. waad mahadsantahay Faisa. barnaamijkani waa kii ugu horreeyay ee aan baahino bisha Oktoobar ee sanadkan, balse ma la socotaa in Oktoobar ay tahay bishii uu dhashay hormuudkii rabshad la'aanta. Waa arrin xiiso leh. Cabdi Casiis, waxaan filayaa inaad ka hadlayso Mahatma Gandhi. taasi waa sax Faiso. sanadkii 2007 waxay qaramada midoobay ku dhawaaqday in maalintii uu dhashay Mahatma Gandhi 2 Oktoobar loo aqoonsaday maalinta caalamiga ah ee rabshad la'aanta. Waa aqoonsi habboon. Marka aan ka hadlayno sanad guurada dhalashada, miyaad garanaysaa cidda sida aadka ah u jecel? dabcan taasi waa carruurta. aad iyo aad, balse waa arrin xanuun badan in tiro badan oo carruur ah oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliyeed ay weli dhibanayaal u yihiin colaadaha, sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee ku saabsan carruurtii colaadaha hubeysan oo soo baxday sanadkan 2025 ayay qaramada midoobay ku xaqiijisay xadgudubyo halis oo gaaraya 2568 kiis oo dhacay sanadihii hore loona geystay 1992 carruur ah. waa xaqiiqo xanuun badan arrintaasi. carruurta Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin kuwa la kulma baylahda ugu baahsan iyagoo wajahaya askarayn ay u geystaan kooxaha hubeysan, dilal, naafayn, afduubyo, weeraro loo geystay iskuullada, cisbitaalada iyo hor istaagista gargaarka bini'aadanimada iyo tacadiyada galmada. waa sidaas. maantana waxaan eegi doonaa waxyaabaha ay tahay in la qabto si carruurta looga ilaaliyo saameynta daran ee colaadaha hubeysan. wax ka qabashada arrintani waxay ka bilaabanaysaa hay'adaha fulinta sharciga. kaalinta bulshada iyaduna waa muhiim. qoysaska, macallimiinta, odayaasha iyo hogaamiyaasha diinta ayaa gacan ka geysan kara ka hortagga askaraynta carruurta, iyagoo sidoo kalena ka taageeri kara inay dib ula midoobaan bulshada iyadoo dib loogu celinayo iskuullada, guryaha iyo bulshada dhexdeeda. carruurtu waa mustaqbalkeena. ilaalintooda waa mas'uuliyad saaran ruux kasta, maadaama mustaqbalka dalka iyagu uu ku tiirsan yahay. qaramada midoobay waxay la shaqaynaysaa bahwadaagta kala duwan sida wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda amniga iyo garsoorka si loola socdo loogana soo warbixiyo nidaamyada wareejinta carruurta iyo habraacyada qiimaynta da'da. tusaale ahaan, wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa iyadoo taageero ka helaysa hay-adda UNICEF waxay aqoonsatay islamarkaana wareejisay carruur horey uga tirsanayd kooxda Al-Shabaab. kuwaas waa tallaabooyin muhiim ah, laakiin weli waxaa jira howl badan oo loo baahan yahay in la qabto. haddaba dhegeystayaal, si arrintani aan wax badan uga ogaano, waxaa stuudiyaha maanta nagula sugan laba xidigle Mustaf Salaad Warsame, taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska degmada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug. taliya Mustaf, maxaad nooga sheegi kartaa xaaladda carruurta ka qayb gashay colaadaha hubeysan ee Soomaaliya? sideese booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan kan Galmudug wax uga qabtaa caqabadaha ka dhashay colaadaha hubeysan ee wajahaan carruurtu? mase noo sheegi kartaa natiijo wanaagsan oo ka soo baxday waxqabadkiina arrintaasi ku saabsan? dagaalbeeleedyada kuwa gala waxay soo raafaan oo dagaalka geliyaan ay carruur yaryar halkii waxbarasho iyo la sii lahaa ximaayo iyo keer gaara la sii lahaa. dagaaladii soo geliyaan iyagoo uga faa'iideysanaya inay dadka ku qaribaan iyagana la qaribo. sidaas oo kale kooxahan argagixisada ee qaybo kamid ah gobol maamulka Galmudug haysta iyagana waxay adeegsadaan carruurta waxay u sameeyaan dhowr qaab u adeegsadaan. mar waxay u adeegsadaan inay waxa iyagu istidlaaca u yaqaanaan ama indhaynta u soo diraan oo ay dadka ku soo milaan. marna hubkay u soo dhiibaan oo dagaaladii soo geliyaan. booliska Galmudug wuxuu leeyahay unidyo ka shaqeeya oo u tababaran ka hortagga in carruurtaas la dhibaateeyo oo si guud loo ilaaliyo. kuwii ugu dambeeyay waxaan qabanay dhowr jeer oo isxigxigay carruur laga soo raafay koonfur galbeed iyo Hirshabelle qaybo kamid ah oo loo wado Puntland oo markii hore iyaga loogu sheekeynayay in la tahriibinayo oo markay kontaroolada iyo meelaha boolisku ay qabtaan lagu yiri u sheega tahriib baad tihiin, laakiin aan ahayn dad tahriibaya ahay dad loo waday dagaalo. qaab noocee ah ayay boolisku uga hortagaan askaraynta carruurta iyo in carruurta loo adeegsado colaadaha hubeysan? maxaase guul ah oo aad arrintaas ka gaarteen? askaraynta carruurta waxaa looga hortagaa dhowr qaab. qaabka koowaad waxaa waaye waxaa loo tababaraa macallimiinta soo qoraysa askarta ama soo diiwaan gelinaysa oo in ay yihiin. waxaa loo tababaraa inay aqoonsan karaan dadka aan qaangaarin ee ciidamada dadka raba in ciidamada loo qoro soo dhexgelaya. inay macallimiintaas ay physical ahaan iyo si walba ay u baran karaan qofka inuu sida gaarin iyo in kale. qofka aan qaan gaarin
waxyaabaha lagu garan kara waxaa kamid ah oo maaragtay loo sheego macallimiinta ama la baray oo loo tababaray waxaa kamid ah inay maaragtay qofka muuqaalkiisa markuu yimaado marka koowaad baa la garan karo waxaa jiri kara qof da' weyn oo qof yar u ekaan kara laakiin qofka waxaa jiri kara sidaas oo kale qof aan qaan gaarin oo qof weyn u ekaan kara oo caruur ah marka macallimiinta ayaa marka hore u tababarnaa kadibna waxaa la sameeyaa qofka xoogaa tuhunaa galawaad dib tixraac dambaa lagu sameeyaa si loo ogaado xilliga uu qofkaasi dhashay oo saxda ah waalidkiisa loo tagaa deegaanada ku dhashay iyo waxaas maaragtay dib loo tixraacaa si loo xaqiijiyo qofkan inuusan ahayn qof inuu saqiira iyo inuu yahay qofkii fit ku ahayo u qalmay inuu askari noqdo maaragtay taas waa lagu xaqiijiyo sidaas waan sameynaa midda labaadna waxaan sameynaa marka hore oo maaragtay la soo qorayo wacyigelinaa la sameeyaa oo dadka waa loo sheegaa saxaafadda laga sheegaa iyo meelaha wax laga qoraaba in qof maaragtay dhalinyaro saqiira ee aan qaan gaarin da'da 18 sano iyo wax ka badan aan gaarin inuusan ka soo qayb gelin meeshan imaanin waalidkuna aysan keenin sidee ayay bulshada iyo qoysasku ula shaqayn karaan booliiska si loo ilaaliyo carruurta loona taageero inay bulshada dib ula midoobaan xaafadaha waxaa ka dhisan urur xaafadeed yaa ka dhisan xaafadaha magaalada iyo tuulooyinka banaanka ah waxaa joogta culimadiinka jooga iyagana sidaas oo kale waxaa jira wax la yidhahdo oday dhaqameedka jiro marka waxaa la sameeya iyo booliska oo wada socda iyo ururada xuquuqul insaanka xafiisyadooda wacyigelina la sameeyaa xaafad baa loo sameeyaa wacyigelintaas oo maaragtay bulshada lagu faraayo loogana wacyigelinayo dhibaataynta carruurta marka culimada masaajidda iyo meelaha muxaadaraadka iyo ay ka jeediyaan ay maaragtay ka jeediyaan in maaragtay carruurta maaragtay la ilaaliyo oo aan maaragtay loo adeegsan rabshadaha hadday rabshadaha colaadaha tahay iyo hadday tahay rabshadaha argagixisada insan ka qayb gelin sidaas oo kale community policing wax la yidhaha jiro oo maaragtay booliska si gaara ula shaqeeya kuwa oo argagixisada ka imaada waxaa la sameeyaa marka hore baaris baa la geliyaa si loo kala saaro iyaga ruuxooda kuwa da'da yar oo maaragtay carruurta yaryar ah iyo kuwa qaangaare loo kala saaro kadib waxaa lagu wareejiyaa hay-adaha ku shaqada leh sida hay-adaha xuquuqul insaanka hay-adaha maaragtay UN-ka kuwa ka jooga galmudug iyo maaragtay wasaaradda amniga iyo nabad sugidda si loo xaqiijiyo badqabkooda iyo loona geeyo meelo ay maaragtay ku badbaadaan oo maaragtay ay ku helaan maaragtay gabaad nololeed oo wanaagsan si ay bulshada oo maaragtay dib loogu soo kabo maaragtay wax loo soo baro loo soo dhaqan celiyo maaragtay maskaxdooda looga soo mayro waxyaabihii qaladaadka ee hore loogu shubay kadibna waxaa loo wareejiyay hay-adaha xanaanada ee maaragtay carruurta ka timaada argagixisada maaragtay lagu soo dhaqan celiyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa laba xidigle Mustaf Salaad Warsame taliye ku-xigeenka saldhigga booliska degmada Dhuusamareeb oo marti inoogu ahaa barnaamijka Tubta Nabadda balse iminkana dhageystayaal aan u gudubno waraysi aan la yeelanay Cumar Cabdi Aadan madaxa barnaamijyada hay'adda isbahaysiga xuquuqda carruurta Soomaaliyeed Somali Child Rights Coalition Cumar hay'addiinu waxay diiwaan gelisaa tacadiyada xuquuqda carruurta haddaba sidee ayaad ula socotaan ugana soo warbixisaan kiisaskan maxayse tahay saamaynta ay shaqadiinu yeelatay ilaa hadda anaga inta badan doorkeenu wuxuu yahay inaan u ololeyno sidii wax looga qaban lahaa tacdiyadaas kala duwan anagoo inta badan kala shaqeyna wasaaradaha markaas dowliga ay khuseyso tusaale ahaan hay-adda wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale wasaaradda cadaaladda oo inta badan aan si fiican si joogta ula shaqeyno waxaa inta badan saameynteena ay gaartay in inta badan aan u ololeyno ama aan meel marayno dhammaan xuquuqaadka carruurta ay leeyihiin shuruucdeeda kala duwan hadday noqon lahayd tii dalka inta badan u degan iyo hadday noqon lahayd tii gobolka hadday noqon lahayd tii caalamiga inta badan waxaa u ololeynaa oo xoog saarnaa sidii carruurta Soomaaliyeed ee u helayaan xuquuqda anagoo u marayno in la ansixiyo ama la helo heshiisyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka oo Afrika ah iyo kuwa dalka uu leeyahay inta badan u degan waxaan ku guuleysanay inaan inta badan u ololeyno in la sameeyo ama la bilaabo xuquuqaadka maxaa la sheegay heer maxaa la sheegay heer maxalli ah oo heer qaran ah oo ugu horeeyo axdiga loo yaqaan xuquuqda carruurta oo marka afqalaad lagu dhaho Child Rights Bill-ka oo inta badan anaga xogaa qayb weyn ku lahayn draftigiisa koowaad inaan macnaha maxaa la sheegay hindisaas inaan qayb ka noqono marka dadaalo badan jiro anaga wadno inta badan oo xoog saarayna sidii carruur Soomaaliyeed dhibaatooyinka loo geysan lahaa aan ugu ololeyn lahayn waxna ugu qaban lahayn waxa ugu weyn horta markii laga hadlayo xuquuqda carruurta ama dhowris markii laga hadlayo kale waa inay meesha timaadaa xuquuqda ama sharciyada dhulka dadka dhowr lahay xuquuqda dhowr lahay tacdiyo badan jiro tacdiyada loo geysto carruurta kala duwan yihiin anagoo ka duuleen marka tacdiyada sida wax u qaban lahayn waxay daladu ama isbahaysigu xooga saaray in marka hore la helo shuruuc macnaha ilaalin lahayd macnaha waxa la sheegay carruurta macnaha xuquuqda dhowr lahayd macnaha oo ugu horeeyo axdiga caalamiga ee xuquuqda aadanaha loo yaqaan CRC
kaasoo qayb weyn aan ka qaadanay maxaa la sheeg in dowladda Soomaaliya ku riixnay inay sixido oo ratify gareyso kadibna maxaa la sheeg report ugu horeeyay ee dirtay laga soo jawaabay oo laga soo siiyay talo bixino badan aydan haddana waxaan u istaagnay inaan meel marintii macnaha fulintii macnaha shuruucdaas inay fuliso ay ku dabaqdo mar haddii maxaa la sheeg dowladda Soomaaliya ay sixido shuruucda caalamiga ah oo ugu horeeya xuquuqda maxaa la sheeg kan carruurta waxaan haddana xoog saarnaa sidii u fulin lahayd u dhaqan gelin lahayd taasoo qayb ka ah maxaa la sheeg waajibaad ka saaran heer caalami waxaan inta badan maqalnaa 6 tacadi ee waaweyn haddaba ma noo sheegi kartaa waxa ay yihiin iyo siday u saameeyaan nolosha carruurta markii dalka uu ka dhaco dagaal sokeeye ama burbur oo ka dhaco ama khilaafaad xagga maxaa la sheeg siyaasadda oo dhaco inta badan waxaa jiro tacadiyo inta badan soo wajaha maxaa la sheeg guud ahaan bini'aadamka gaar ahaan carruurta Soomaaliyeed ama carruurta marka laga hadlayo tacadiyaas waa kala duwan waxa ugu horeeya kan ugu weyn oo ah maxaa la sheeg dilka oo kale maxaa la sheeg in carruurta maxaa la sheeg ay ku dhamaadaan khilaafaadka ama dagaalada ka dhacay maxaa la sheeg maxalliga ah waxaa sidoo kale kamid ah in la shaqaaleysiyo kale ama la askareeyo kale ee qaybaha kala duwan ee maxaa la sheeg siyaasadda isku hayo kale maxaa la sheeg inay carruurtii askareeyaan ugu faa'iideystaan waxaa sidoo kale kamid ah oo midka saddexaad uu yahay in loo geysto dhibaatooyin ama shaqooyin xagga maxaa la sheeg jinsi ahaan oo kale in la kufsado kale dhici karto qodobka afraad wuxuu sheegaa sidoo kale in maxaa la sheeg carruurta maxaa la sheeg in la wato macnaha soolaan kale oo la kaxaysto ama maxaa la sheeg soolaan kale in carruurtii maadaama maxaa la sheeg burbur uu dhacay qoysaska ay kala tageen in qoys kale maxaa la sheeg inuu qaataa laga yaaba waxaa sidoo kale qodobka shanaad ah oo inta badan xoog la saaraa waxaa waaye uu xoog saaro waxaan loo yaqaano lixdan maxaa la sheeg ama in dagaalo ama la weeraro isbitaalada ama soolaan kale iskoolaadka kale inay ka dhacaan maxaa la sheeg weeraro oo maxaa la sheeg la geysto oo markaasna carruurta waxyeelo ku gaarto waxaa u dambeeya qodobka u dambeeya ah maxaa la sheeg inta badan markii la hadlayo gargaarka bini'aadamnimo oo kale guud ahaan bini'aadamka waa la siiyaa laakiin haddana ma jirto in loo sameeyo wax si gaar ah carruurta maxaa la sheeg dareen gooni ah loo muujiyo oo marka waxaa laga yaabaa in gargaarkii ama degmihii loo macaamil ama xal keenay in carruurta waxyaabaha u baahan yihiin oo kale in macnaha inta badan maxaa la sheeg la inkiro ama macnaha maxaa la sheeg ama qayb ka ahayn gargaarka markaas la fidinayo kale ugu dambayn marka carruurtu ay ka soo baxaan kooxaha hubaysan maxay yihiin adeegyada ay heli karaan si ay bulshada dib ugula midoobaan horta markii carruurta ay ku biiraan qaybaha kala duwan ee maxaa la sheeg ciidamada askareynta oo dib loogu soo celiyo ama maxaa la sheeg dib loogu soo saaro hawsha ay ku jireen waxaa horta kow intay sirf adeeg helin waxaa ugu horeeya in macnaha ii sheeg oo qodobka ugu muhiimsan oo inta badan kawaarigno ahaan aan fiirinayo waxaa waaye in ay helaan wax loo yaqaano aqbalaadda bulshada macnaha cunugan waalidaa dhalay deegaan xaafadu kusoo barbaaray iskool uu dhigan jiray duruufo kadib wuxuu ku biiray askar ama waala ciidan laga dhigay marxalad kale oo galay maxaa la sheeg shaqooyin badan oo soo qabtay laga yaabo inuu dad dilay inuu maxaa dhibaatooyin badan soo gaarsiyay marka in cunugaas uu dib ugu soo laabto bulshadii naftigeeda waxay u baahan tahay koorta qodobka u horeeya ah inta adeegii wax laga fikirin cunugan qaabka bulshada oo aqbal lahayd macnaha waxa loo yaqaano community acceptance-ga ya inta ka warqaban hadda oo ka warreeyna waxaa dhacdo qolooyinkan loo yaqaano maxaa la sheeg asluubtoo kale ciidamada asluubtoo kale waxay sameeyaan carruurta maxaa la sheeg u sameeya xarun oo maxaa la sheeg dhaqan celin xirfad ugu baro laakiin waxaa in markasta muhiim ah in marka hore xataa maxaa la sheeg loo sameeyo cunug waxa loo yaqaano counseling ama la talin dhinaca maxaa la sheeg maadaama uu ku jiray maxaa la sheeg xaalad askareyn ama ciidan dhib uu soo maray sidoo kale xataa waxay u baahan tahay in laga wacyigeliyo bulshada in cunugaas oo kale ay aqbalaan oo kale xataa waa adkaanaya waalidka macnaha waxaa la sheeg inuu dib macnaha u sheeg u aamino maxaa la sheeg cunugii marxalad kale ka duwan hal sano ka maqnaa askar soo ahaa ciidan soo ahaa laga yaabo macnaha in wax loo geysto asaga in wax geysta laga yaabo ilmaha ka yimaada maxaa la sheeg kooxaha weysan maxaa la sheeg waa waxaa dhihi lahaa in dowladda u furto xarumahaas oo macnaha maxaa la sheeg ay ka helayaan dhammaan adeegyada kala duwan ee heli hadii noqon lahayd waxbarashadii hadday noqon lahayd caafimaadka hadday noqon lahayd koriimahooda iyo su'aalaha kale sidaas oo kale qodobkaas waxaa marka in dowladda ay samayso xarumo carruus loogu talagalo khaas u ah isla markaasna la geeyo macallimiin macnaha maxaa la sheeg u tababaran aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Cumar Cabdi Aadan madaxa barnaamijyada hay'adda isbahaysiga xuquuqda carruurta Somali Child Rights Coalition wuxuu marti inoogu ahaa barnaamijka tubta nabadda balse iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan hees ka hadlaysa muhiimadda ilaalinta carruurta oo ay inoo qaadayaan qaar ka mid a fanaaniinta Soomaaliyeed
waa hagaag dhegaystayaal aan intaas uga gudubna heestaasi ka hadlaysay muhiimadda ilaalinta carruurta waxaa ku luqeynaya qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed waxayna ugu dambeysay barnaamijkeennii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiriye iyo anigoo ah Faysa Cabdi Warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin kara bartaan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysaneysaan